waxaan ahaa shaqaale nadaafadeed weligay carruurtayda uma sheegin waxa aan ka shaqeeyo waayo ma rabin inay niyad jabaan markay gabadhayda yar i weydiiso shaqadayda waxaan si qoys ah ugu sheegi jiray inaan ka shaqeeyo farsamada gacanta galabkii marka aan shaqada ka rawaxayo waan qubaysan jiray si aysan carruurtayda igu fahmin shaqadayda gabdhahayga iskuul ayaan geeyey si ay wax u bartaan oo dadka sharaf iyo karaamo ugu dhex noolaadaan waayo ma rabin in loo bahdilo sida aniga oo kale waxaan keediyey kun kasta oo isoo galay si aan gabdhahayga wax ugu baro weligay ma iibsan shaati cusub ee waxaan ugu geli jiray buugaag iyo wax ay wax ku bartaan curadayda ayaa iskuulka soo dhammaysatay hal maalin ayaa ka dhiman maalinka ay xirmayso isdiiwaangelinta jaamacadda ma hayo lacag aan ku diiwaangeliyo maalintaas murugo iyo quus ayaan la shaqay kari waayey waxaan ag fariistay sanduuqa qashinka ilin ayaa iga da'aysa waxaan isku dayay inaan qariyo waan niyad jabsanahay waayo ma hayo waxaan caawa ugu jawaabo gabadhayda markii aan guriga ku laabto oo ay weydiiso lacagtii ay biri isaga diiwaangelin lahayd jaamacadda waxaa halkii iigu yimid saaxiibadaydii shaqada qaar baa ogaa walwalka i haya dhinacyadayda ayay soo fariisteen waxayna igu dhaheen ha murugoonin annaga ayaa ku garab taagan waxayna i siiyeen joornaatigii ay maalinkaas shaqaysteen oo ay iska soo ururiyeen waan ka yara diiday balse igama aqbalin waxayna igu dhaheen dhib ma laha in aan maanta keliya gaajoonno ayaan ka doorannay inay curadaadu biri jaamacadda iska diiwaangeliso waan ka qaatay waana uga mahad celiyey maalinkaas ma marin musqushii aan kasii qubaysan jiray inta aanan shaqada ka bixin waxaan guriga tegay anigoo faraxsan oo iga muuqdaan daalkii iyo wasaqdii shaqada nasiib wanaag maanta curadaydu waxay ku jirtaa sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda way shaqaysaa oo nolosha qoysku maanta iyada ayay ku tiirsan tahay aniga shaqada way iga fariisisay saddexda gabdhood ee kalena jaamacad ayay noo dhigtaan alla mahadii marmarka qaar ayay curadaydu gaarigeeda igu qaadaa shaqadaydii hore waxaana la soo qadaynaa saaxiibadaydii shaqada midkood ayaa maalin igu yidhi oo maxaad isu dhibtaan oo qadadan noogu keentaan gabadhayda ayaa igu jawaabtay ma hilmaamin abaalna waan idinkaga hayaa maalinkii aad dartay u gaajooteen si aan u gaaro heerka aan maanta joogo alla mahadii maanta ma dareemayo inaan faqiir ahayn oo sidee ayaan saboolnimo u dareemaa anigoo haysta gabdhahaygan sheekadan aabbe idris waxaa daabacay bogga GMB Ekesh waxaana turjumay Xuseen Sabriye.